xukuumadda dalka Mareykanka ayaa si rasmi ah u aqoonsatay dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 17kii bishan aynu ku jirno kadib kulan dhex maray madaxweyne Xasan Sheekh iyo xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda dalka Mareykanka. haddaba jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa si weyn u soo dhaweysay aqoonsigii ay dowladda Mareykanku siisay dhawaan dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay aqoonsigan inuu yahay mid hore u sii riixi kara xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka. Soomaaliya iyo Amerika waxa uu bilowday new beginning waxaan rajaynayaa labada wadan inay ka wada faa'iideystaan Soomaalida meel kasta ay joogto. waxaan aaminsanahay in arrintan ku faraxday waana soo dhaweynaynaa. magacayga waa Muxtaar Saad Aadan waxaan si aad u soo dhaweynaynaa ogolaashaha ama aqoonsiga aynu aqoonsatay dowladda Mareykanka. magacayga waa Ibrahim Maxamed Ali waa Suudaan beesha Jarweyne Suudaankoodii oo South Africa aan ku leeyahay magaca beesha Jarweyne aqoonsiga ay siisay Mareykanka Soomaaliya waa horumar aad u weyn oo macnaha waxa ku 23 sano ka hor ayaa aqoonsiga Soomaaliya loo maanta oo dib loo xasuustay aad u faraxsan waa horumar aad iyo aad u ballaaran. wallahi aqoonsigaasi xarunta aqoonsi cajiib ah oo ay ka shaqeysay dawladdu in muddo ah waana aqoonsi loo baahnaa. waxaan arkaa inay tahay fursad Soomaalida waxaan arkaa waa dawladda dalka caalamka u weyneed oo maanta ugu dhaqaale badnayd oo laajis xukuumadda waddanka hadana hadii la taageero ma taqaan inta Soomaaliya ay taageerto ay aqoonsato safaaradda furato fursad ay u tahay. si kastaba ha ahaatee aqoonsigan uu Mareykanku siiyay dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la dhihi karaa waa talaabo taariikhi ah oo dhiirigelinaysa xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka iyadoo Mareykanka uusan tan iyo 1991 aqoonsaneen dowladihii soo maray dalka Soomaaliya. Cabdinaasir Soomane, Faisal TV.